kuwa cadowga Soomaaliyeena ee ku hanjabayay maartay laascaanood waa lagu dhagaxyeynaya waa lagu eriyanaya waa lagu saan kuwaasi waa kuwa horumarka diidan dalka inaan Maxamed Siyaad isaga oo nool ayaana waliga caayin isaga oo jabhad kamid ah xabaduhu nagu dhacayaan ayaana waliga kuwa ogsoon in muddo qarniyaal dhabta iyo dhabarka hablo hartiya aan ku jiifay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose gudoomiyaha urur siyaasadeedka Barwaaqo oo maanta ku soo gabagabiyay magaalada Laascaanood madax taabashada ururada siyaasadda waxa uu mahadcelin iyo bogaadin u jeediyay taageerayaasha ururka Barwaaqo ee gobolada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Laascaanood oo uu sheegay in si weyn loogu soo dhaweeyay loogana taageeray ururkiisa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa sidoo kale farin u diray xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waxaana kamid ah hadaladiisii maanta waxa lagu soo afjaray magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool shuruudii ugu dambeysay ee lagu kala reebayay ururada siyaasadeed 14 ah taasoo ah madax tiriskii waxay noogu dhamaatay guul xaraga leh waxay noogu dhamaatay tirabaaxale waxay noogu dhamaatay soo dhaweyn qalbi iyo waji furana dareenka dadku waxa ay kuwa aad iyo aad maartay ii qadarinaya ii jecel kuwa ogsoon in muddo qarniyaal dhabta iyo dhabarka hablo hartiya aan ku jiifay aan tirsanayo inaan cidiga xigtahay jirin Laascaanood aan tirsanayo qofkiiga soo horbaxaaba wiilaha abti walaal inaabti habar yar Laascaanood lagu ceeli maayo Laascaanood ku dhici maysid Laascaanood anaka ku garab taagan taas ayaan rajaynayaa dagaalka weyn ee soo dambeeyana inaan ilaahay oo iga dhigo goobtii ee guusha ugu weyn aan kaga helayay ee madaxweynenimada dalka ee loo wada waxa ururkayga iyo taageerayaashayduba ka muujiyeen wacdaro aad iyo aad indhaha dadweynaha u soo jiitay aad iyo aad ay u muujiyeen inay xisbinimadii ka gudbeen ee ay ururnimadii ka gudbeen ay maartay maanta xisbinimo calaamadaheedu dhan ay ka muuqdaan isku kalsooni waxaan aad iyo aad u xusayaa maamulayaasha ururka oo nin walbaba gobolkiisii isagu maamulanayay isagii ragiisa tiimkiisu oo mid walbaba guulo la yaab leh uu ka soo hoyay fursadan qaaliga ee la siiyay waxay ka turjumaysaa inuu shacbigu doorto hogaano ay u arkaan inay ka doonaan karaan waxa qalbigoodu jecel yahay ku doortaan yaani u dooran saddex xisbiyo xiran hambalyaan leeyahay cid kastoo ka shaqaysay in maanta fursadda dahabiga ay dhalatana waan ugu mahadcelin kuwa cadowga Soomaaliyeena ee ku hanjabayay maartay Laascaanood waa lagu dhagaxyeynaya waa lagu eriyanaya waa lagu saan kuwaasi waa kuwa horumarka diidan dalka iyo dadka waa kuwa diidan wada jirka walaaltinimada waa kuwa diidan maartay in gobolkaani kamid noqdo danahoodii gaarka waxaan u mahadinayaa dadweynaha ee nooc walba haday tahay madax dhaqameed haday tahay siyaasiyiin haday tahay bulshada ilaa ardaydii jaamacadu maanta waxay muujiyeen isbedelka soo socda inay raali ka yihiin aan u sheegayaa abtiyaashay oo intaasoo qarri soo korinayay oo leh barbaarinteeda inta ugu badan leh oo dadnimadeedii geesinimadeeda inta badan ugu leh oo cilmigeega iyo aqoonteeda inta badan ugu leh oo siyaasadda aan ka gaaray heerka leh inaan Maxamed Siyaad isaga oo nool ayaana waliga caayin isaga oo jabhad kamid ah xabaduhu nagu dhacayaan ayaana waliga caayin isagoo geeriyooday maanta shakhsiyadiisa inaan caayay gama suurtoodo wala dhagaxyeeya halkay dhagaxa ka filayeen dhagaxii wuxuu ku dhacay quluubta hablaha habreeraha ee abtiyaasha wuxuu ku dhacay quluubta inamada abtiyaashay garaadada habeenowta waxaan la joogay garaadada iyo odayaasha ugu waaweyn ayaan la fadhiyay xaqiiqdii waxay ugu yiraahdeen iskaga tag Laascaanood mar dambe ha soo noqon guusheedu banaanka ku taalay gobolada kale waqtiga ku lumay marka saa awgeed baan wax kambeena dambe uga galin iyo ka ordiyay iyo kana guusha siiyay hambalyo waxaan oran lahaa axsaabta mucaaradka waa dalkiini waa dadkiini waad aragtaan dareenka shacbiga waxaan oran lahaa duufaanu yaanadi
mukhtaar cabdi jaamac wararka Honkeyba laascaanood. واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa